waxaan maqli jiray dumarka Soomaalidu ninkii wax haystay wax ugu daraan habeenkaad guursato 10 naagood oo meelay ka yimaadeen aadan garanayn oo aadan weliga arag balaabtiisa ku ganay Allah walaalo miyaad guursatay Allah walaalo hadda inta iska bulataay wax laabta ku gelinay yarkimeys wax kula soo hadlay yarkimeys nin baabari wuxuu ka shakiyeen xaaskiisa lala sheer garayo dabadeedna nin saaxiibkii soo qadageeyo kiino maanta markaad ila qadayso waan ku qadageynaya xaaskayga oo dhan ay qadayno kan qolbaan adigana ku fadhiisinaya dabadeedna markii xaaskayga ku timaado naaska ku dhagbuyo wallahi sameeysanayay dabadeedna naaskiibu ku dhagay way qaylsaa dabadeedna nin kala ordo yiri maxaa dhacay ستيم واحد عيبان قرنيا سو نكيد ماشيها تريس كدوشة كما قودي قاعدين شرارتنا والله وبينا قبطسي يا وين يسلوك أي واحد سينايا صراحة تقول لك فاني شوف أنا إلهي واحد كوفر نشيب لقاعدي أنا كه مركي حيستدي وحضرك سنين وين أو أنتو قبل لب الله ما يرهر داري وبغلها ولا يوصل باتشي ومال أنت يقول تمين أنتو تشابك جماعة إسكاجشتو أما إسكا عضينا يا بدر كسا gabadhu macaday bay soo doonad waxaad arkaysaa nin weyn oo gabadhii markuu in yar la taagnaado cabaar ay wada hadlaan ku oranaya hal lagu helo soo tan kula taagan maxaa la helaa aan is soo qabanno soo wasaabka iguma jirtid ila soo buuqde ana hadhow ku soo qabanay war haday kula taagan tahay gabadha wax kala hada se wixii la isku sheekaysan jiray baa talo dhamaaday agi biyo dhaanka baa nin shiiqa wixii ibsaday booyad ninkuna wuxuu nin oday lacag leh buu ahaa dadna wuxuu siriyaad u dhiibtaa nin muqayil u dhiib ninka muqayilkaana wuxuu ka shakiyay inuu booyada uu ka khasaareeyo lacag ka cuno ku qayilo xagga hore wuxuu kaga qora qofku aaminay waliga ha khiyaami kii darawalka aba arkay wax ku qoran baash isna xagga dambe wuxuu kaga qora waadna tuhuntay wallahi nagata dadna ay shiiqaade sidii ku harka goos waxaan u sheegay hablaha Soomaaliyeed xiriirka lagaga baxay beriyii u dambeeyay gabadheeda uu aan xiriirka lagaga baxo wiilka iskuulka kula dhigan jiray baa screenshot ka qaasa walaalkay macaane kala saara walaaltinimada iyo xiriirka raggan jacaylka ka baxay way ka masayrayaan ninka yara screenshot ka soo qaadaso stiigaraa la isaga soo ka diraya screenshot walaalkay kana waa walaalkay qalab kay iskuulka wada dhigan jireen baa stiigar u soo diraya kay malcaamada wada dhigan jireen baa shumis u soo diraya kay bareefadka wada dhigan jireen ma isna wax yar qoraal u soo diray screenshot baa laga soo qaadaya ninkii markuu arko waxaan screenshot nin walba leeyahay waa walaalkii uu xanaaqaya adaa u socdo qof walba screenshot baad ka qaadaysaa markaas aan waa walaalkii hadalkiisa kama daalo kana waa ka hela waxa iskaga ka khaldan gabadhay adiga oo maanta 25 jir oo dugsi sare dhameeyay xiriirka ninka la lahayd iyo ka aad walaaltinimadu ingala dhaxayso hablaha adduunka ugu wacan waa gabadha soo jeeda habeenkii saamaleysha ee ragga u sheekaysa waa gabdhaha dhala darawaliinta gaadharka xamaalinta tiglayaasha baslayaasha tuugta gaadhka askariga nimanka aan seexan ee habeenkii damanka aan hurdadu karin ee saamaleylka ee awga gaadhiyaasha waaweyn mariya ee geed adayg oo dhan hablaha dhala waa hablaha saamaleyle ee soo jeeda marka hablaha hal ogaado baan leeyahay geed waliba dheecaankiisu dhalaa nin waliba qofku jiifiyu soo toosiya shay walba wixii lagu shuban baa laga shuba aad oday reer muduga gabadh yar oo qabay 18 jir ahayd farmasi u soo kaxeeyay tumiga ka keenay farmasi u soo kaxeeyay farmasiga markuu saaw keenay doctorada Soomaalidu waa yara bilaakhla dabadeedna farmasigii buu gabadhii geeyay markuu geeyo odayga kursi halka loo dhigay gabadhiina waxa kaxeeyay kii doctorka qol yar oo halkan bahala cadcad wax ku xiran yihiin bay wala galay soo soo mudayay dabadeedna odaygu halka fadhiya wuxuu maqlaa doctorka gabadha kule naafeyd marada irbad buu halka badida doonay inuu kaga dhufto odaygu baa intuu booday wuxuu nacasnimadiisa gabadha xaamilada ahayd buu hunguroon doonaa inta odayga orday budla booday doctorada Soomaalida ka aqaan nacasnimadooda gabadha xaamilada ahayd buu hunguroon doonaa odaygu baa isa sii daay gabadh baa WhatsApp-ka iska baranay beri dabadeedna beriga WhatsApp-ku cusbaa wahay mar walba status-ka waxay soo dhigtaa yaa online yaa soo jeeda habeen wacan ama broadcast ba ka soo dirtaa ana waxaan aadaade online gabadha la hadal ma beri belay baan galasaan ana online soo ninay isjecel yihiin bay doonaysaa in ribelay soo gala ana mar walba waxaan idhaahdaa ana online ribelay baan u gala markaas taa group bay ka soo dirtaa ama broadcast yaa online ma seexateen saameey waa soo jeeda ma seexatay soo nin bay u dan leedahay
wadna hablaha hadaarinta WhatsApp-ka isticmaalo yaa online yaa soo jeeda iyo ragga ka daayay annaguna ribalay baan iska soo wada galana habeen dhaweed baan gabar ku yiri sawiradaada ay soo dir cabaar bay igu adkaysay waxay tiri kuma soo dirayo walaal sawiradeeda qof hore ma dirin markii dambe waxay ii soo dirtay gabadh indhawaaweyn oo inta indhu laagayo soo ay ilmaabtiino dibadda jirta gabadhii baan iyadii mooda waayay walaal waa ku xiftiya meel baan ku dhigayaa laba cisho kadib bay tii status-ka soo dhigtay walaashay Samiira waan ku hambalyeynaya gabadhii meel ka qalin jabisay anna ribeel baan u gal markaasaan ku yiri Samiira waate saygu tideetan Roomaalid maxay igu soo diris marka dumar oo ka daay ragga sawirada beenta ah u dirasaan mid kale aan ku yiri iyadana sawir ii soo dir sawirada ayadeed moodin dhaqaab weyn ay xiran tahay ii soo dir saygu tii waliba ilaali oo meel dhigo sawirkayga qof kale hayga ilaali isaga markii hore deemaay aan ku sawirada aan tirayo photograph baan la doonan dumar oo ka daay ragga beenta sawirada aan leedin photograph bay gala jiraan mobilka ba xalay baan dhaqay waxa sabeen walaal deel looma dulqaadan